عليه وسلم isku-biiritaan kani hore u soo dhacay oo nagu soo qabanay xaflad ballaaran magaalada Hargeysa oo labada urur guud ahaan isku biireen xafladan maanta qorshaheedu wuxuu ahaa in gobolka Awdal xubnihi ka haysan labada gobol aynu maanta isku biirino dibadeedna loo hawlgalo qaab dhismeedkii dambe ee ururka wixii laga yeeli lahaa haddaba waxaa laga yaabaa inta badan inaan laga warqabin TV-yada iyo idaacada laga dhigaysan laakiin waxaan doonayaa dib ugu yar noqdo oo nin sharaxa sababaha kalifay isku biiritaankan waa midda koowaad waxaanu aasaan anagu markaan hay badbaado ururkeed baan aasaasnay abaabul baanu galnay qabaqaa baanu galnay runtii waxaanu soo saarnay oran karnaa awood ka mida awoodaha ugu waaweynaa siyaasadeed ee dalka somaliland ka mid ah baan soo saarnay anagoo ku xisaabtamaynay inaanu kaalimaha ugu horreeya ka gali doono qaabka wax loo waday laakiin waxaa dhacday in gacan xoog badan soo dhex gashay qoladii la oran jiray diiwaangelinta dabeedna si badheer ah ururkii badbaado loo kala tuuro loo diiday anagu markaa waan tashanay talan ku gaadhnay ahayd horta ururadii markaa lixda ahaa ee dib loo dhigay sagaal bay ahaayeen aad buu xanaaqeen dhib badan baa ka timiday waxaa ka timid in barnaamijyo la qabanqaabiyo annagu waxaanu nidhi nima yahow annagana loo bareeray iskuna haysanay inaanu haddaanu ururnimo nahay inaanu ka koowaad noqon lahayn ama ka labaad noqon lahayn haddii saas la sameeyey ubadkayaga dalkayaga haweenkayaga iyo dhismahayaga marna dumin mayno ciddii xumaantaa samaysay dushaa ka saarnaato annagu saas awgeed mana bannaan baxayno dunuubna gali mayno shacbigayguna uma diyaarsana waxa la yidhaahdo bannaan bax iyo wax la mida waxay yaqaanaan duun bedku ku yaqaana badankoodu dibad waxaan idhi anagu dooni mayna taa go-aankaa markaanu qaadanay go-aankaa markaanu qaadanay isla markiiba waxaan diyaarinay haddana go-aan ahaa waar maynu ka hadhnaa siyaasaddii ururkii aynu wadanay mar haddii la joojiyey siyaasaddii ma ka hadhnaa iyo haddaynu ka hadhno siyaasaddii macnaheedu waxay tahay inaynan ujeed iyo kajeed midaynan lahayn haddaynu ujeeddo lahayn waxaa jira noocyo badan oo looga qayb gala siyaasaddee noocii aan uga qayb galno weliba annaga qaybta ugu horse waxay ahayd dalkan maanta marka dhab loo sheego waxa weeyaan waxaa dhacday siyaasaadkooda 1960 maalintii xornimada la qaatay ilaa maanta aynu joogno muuqaalkeedu waxay ahayd aan maalna baan lahaa aan cunno baan lahaa dabeedna ammaanadii iyo imaankii iyo in badan waxaa ka tegay dalkii wadanimadii ka tegtay waana ka horseedo ugu dambayntii inaynu qabiyaalo fooxun dhacdo ugu dambaynna burburka intaa lagu ku yimaado ummaddii oo maanta taa aynu dib u yeewnay dhisannay qudhadeeda cabsi badan loo qabo meelo badan marka laga eego magaalo waxaan idhi maadaama aanu ujeedkaygu ugu adig u ahaa inaanu golo degan oo nadiifa soo saarno haddii aanu jaanis helna haddana golo baarlamaan oo fiican soo saarno haddii uu suurto gashana ugu dambayn hoggaan qaran oo nadiifa aan soo saarno kama hadhino go-aankayga dabadeed waxaanu samaynay waxa loo yaqaano criteria samaynay criteria waxay ahayd war nooceen ku dooranaynaa haddaba ururkaan ku biirayno waana ku biirnaaye ururka aan ku biirayno waxaan wuxuu ekaanayaa 7 qodob baan dejinnay waxaa ka mid ahaa ururkaas inuu mubaadiida shuurada fulinayo wada tashiga oo dhexdiisa aanay digtaatoriyad isku yeedhin ama ku taaglayn aanay ka jirin laakiin wada tashi istusaalay isqancin hoggaankiisu ku yahay waayo dal waxaan joognaa maanta dibcaane marka dhabalku loo wada hadlo dal waxaynu joognaa maanta u baahan kamid baan u baahannahay laakiin cid ku doogisa looma baahna marka waa in waxaan u baahannahay cid kala wadaag leh oo ayaan u baahannahay waxaan u baahannahay mubaadidii shareecada islaamka ee ummaddani asal iyo gunow lahayd ee waalidkeena aynu ku wadhanay dhammaanteynba inaynu iyadana soo noolayno ururtaa laga dhexeli karayo waxaanu doonaynaa baan idhi urur nabadgelyada ilaalinaya dalka oo aan marka hadday culis yimaadaba tollaa iyo reer hebeloo kacow dalka dumiya aan odhanay iyo qodobo la mida ilaahay qudradii ururada dalka jira kolabo badan baan la qaadanay waanu wada fadhiisannay waanu isweydiinay waxaanan markii dambe ka geen weynay in ururka muuqaalkaa aan sheegayno
nisbadda ugu badan oo aad imtixaanka u baasaa waxaa lagu baasaa A plus waxaa lagu baasaa A B B C baa lagu baasaa dibadda waxa weeyaan waa 95 wixii koose ilaa 85 waa leekan xisaabaad kala sameeyo ururka wadani ayaa darajaadkii aan doonaynay xoogooda ka dhaxaway dibadda go'aan baan ku qaadanay wada hadalno guddi bay noo soo direen aniguna guddi waan u dirnay waanu wada fadhiisannay dood dheer oo aan yarayn oo xilqaybsi leh oo leh mataqaanaa golihii baarlamaanka mataqaana golaha dhex sidii loo qaybsan lahaa golaha hoggaanka sare sidii loo qaybsan lahaa golaha fulinta sidii loo qaybsan lahaa awood qaybsigiiya mabaadi'da sidii loogu heshiin lahaa guddi wada jiroo gobollada qaybsi loo samayn lahaa wixii hore baan isku waafaqnay ugu dambaytana kulan waxaan la qaadanay guddoomiyihii ururka oon isaga kudhiisa testi ka qaadaynay bal qaabka u dhanbaya nooca u noqonayo waxaan odhan karnaa markaasi annaga waxaan ku qanacnay ugu dambayntii ururkaasi inuu yahay urur doonida aan wadno ama dariiqa aan doonaynay aan la mari karayno la jaali karayno sidaa awgeed baan marka ururka ugu biirnay markaasaanu waktigaa aan isku biirnay laga bilaabay ilaa maanta waxaan nahay ururka wadani baan mar haddaanu ururkaa ku biirnay dee waxaan laga rabaa markaas in anaguna dee xilkiina saarnaa aan gudanno oon hawshii galno waxaan u sheegaynaa xubnaha iyaga waxaan u sheegaynaa walaalayaal manu ilduufin manu khaldamin hunguri kursinama erigin laakiin ka fiirsi badan rasuulku wuxuu yihi sahanku arraa'idu laa yakdibu ahlahu sahanku dadkiisa been uma sheego waayo qofka sahanka loo diraa hadduu meel abaareed qofka ku dhaqaajiyo ka warrama reerkiisii sida adduunyadiisa ma aha marka laakiin qof kastoo sahan loo diraa meesha wanaagsan ee rays kale buu geeyaa mar kastaba saas ogeed annagu dadkayga xubnahay ururkay waxaan leenahay meeshii wanaagsanayd ee ku furi kar lahayd waanu geynay jaafaajirad iyo qaylo iyo buugna manu gelin baan leenahay taa haddaan ka gudbo gabagabadii waxa weeye walaalay annagu hadda waxaa kaloo noo go-aana ururka wadani aan maanta nahay qorshaha siyaasadeed ee noogu jadalka ugu horreeya wuxuu noqon doona isku biiritaanka maanta aan samaynay suko in aanu degdeg u dhisno haddana qaab maamulkii gobolka aan dhisno annagoo insha allahu tacala suuq quruxda haddana usoo bandhigi doona maalinteeda haddii ilaha idhaahdo waxaa noo soo hadhay taaka sokow hal qodob oo muhiima oo noqon doona golaha deegaanka